Ku soo dhawow janalka Masraxa Official. Daawadaha qiimiga badan oo waxaan ka codsanaynaa inaad janalka haddii aad soo booqatid like-ta iyo subscribe-ta intaba aad saartid haddii ay ku cajab geliyaan casharada. Waxaan rabnaa casharkii 8aad inaan halkan ka soo jeedino oo aan rabno inaan uga soo bandhigno cashar Masraxa Official si bahda waxbarashada ee fasalka afraad dugsiga sare ay uga faa'iidaystaan maadada chemistry-ga. Example of alkyl groups waxaan rabnaa inaan ka hadalno tusaalooyinka alkyl groupska. Waa laba example daawade waa tusaalihii koowaad oo alkyl groups ka hadlaya. Su-aasha koowaad waxaa la weydiiyey find the number of hydrogen atom inta hydrogen atom ee ku jirta alkyl groupka haddii aad haystay laba carbon atom. Tusaale ahaan oo kale alkyl groupka carbon atomkiisa waxaad haystaa labo. Waxa lagu diray waa number of hydrogen-ta ee ku jiri karta alkyl group waa imisa. Tusaale number of hydrogen atomka ee ku jira alkyl groupka waa imisa hydrogen oo alkyl group ayaa ku jirta haddii carbonada aad haysato laba atom. Carbonada ay haysatay yihiin laba atom. Ustaad waxaa isla nagaanaa qaacidada alkyl groupka in horta sideedaba total marka laga hadlayo C sub n H 2n plus 1. Tusaalahaan kale qaacidadan waxaa iska leh waxa la yiraahdo alkyl groups yaa iska leh alkyl group waa general formula. Haddii su-aashaan weydiin lacala general formula iska leh. Marka waxaan rabnaa inaan ka hadalno ustaado marna waxaa la ii diraa hydrogenada. Hadda tusaalahaan oo kale su-aashaan oo kale waxaan qoranaynaa wax la yiraahdo solution. Tusaalahaan oo kale waxaan qoranaynaa wax la yiraahdo given. Waxaana loo diray waxaana la siiyey. Qaacidada aan ku shaqeyn doonana xagee ka soo dharsanaynaa waa su-aal muhiim ah oo isweydiin mudan. Okay. Given-ka muxuu noqon doonaa marka? Tusaalahaan oo kale waxaa la ii diray aniga hydrogen la ii diray. Waxaa la ii diray hydrogen. Inta hydrogen atom ee ku jiri karta alkyl group soo saara la yiraahdo. Hydrogen ayaa la ii diray. Okay. Waa calaamad su'aala saaran hydrogen ayaa la ii diray. Number of carbon oo u taagan n imisaan haystaa. Waxaan haystaa laba ayaan haystaa. Maadaama laba la ii siiyey waxa la ii dirana ay yihiin number of hydrogen atom of alkyl group la ii diray. Number of carbonka atomkana waxaan haystaa laba ayaan haysataa. Marka qaacidada aan ku shaqeynayo halkaan ka soo dharana waxaan leeyahay hydrogenada maxaa lagu heli karaa? Inta tusaalahaan oo kale waxaan soo qaadanaa hydrogenada waxaan ku heli karaa leeyahay 2n plus 1 soo qaado. Intaasaan ku heli karaa. Hydrogenada waxaan ku heli karaa 2n plus 1 2n plus 1 2n plus 1. Marka waxaan ogaanaynaa marka number of carbon meeqaan haystaa. Waxaan rabnaa inaan ku bedelano. Marka waxaan rajeynaynaa si fiican la socotid. Marka waxaan leenahay number of carbonka waxaan haystaa laba number of carbon tirada carbonka waxaan haystaa laba haystaa. Marka laba ayaan laba ku dhufan doonaa. Marka meeshan wax kale lagama rabo plus 2 ma haya oo raali noqoyaa. Meesha waxaa laga rabaa plus 1. meesha maxaa laga rabaa plus 1 ayaa laga rabaa. Tusaalahaan qaacidadu waa tana 2n plus 1. Marka waxaan leenahay 2 ayaan leenahay waxaa ku dhufsan su'aal number of carbon meeqaan haystaa. Number of carbonka laba ayaa la siiyey labadaana ku bedelee number inta ku bedelanay 2 ayaa la siiyey 2 ayaa ku dhufanaysaa maxaa ku daraysaa plus 1 ayaa ku daraysaa plus 1 ayaa ku daraysaa. Waxaan leenahay hydrogenada waxaa la siiyey laba ku dhufo waa imisa waa 4. laba ku dhufo waa imisa waa 4. hal ku dar hydrogenada hydrogen maxaa lagu helaa marka hydrogenkii wuxuu noqday hal ku dar muxuu noqon doonaa
hal ayuu noqonaa. afar haddii hal lagu daro waa imise? afar haddii hal lagu daro waa imise? waa 5. marka number of carbonka iyo meeqaan soo helay? 5 ayaan soo helay. number of carbonka iyo meeqaan soo helay? number of carbon 5 ayaan soo helay. marka haddii tusaalahaan oo kale alkyl groupka la joogo, tusaalahaan oo kale number of hydrogen lagu diro, tusaalahaan oo kale number of hydrogen atom oo alkyl group lagu diray oo hydrogen lagu diray carbonana 2 haysta, waxaa ku shaqeynaysa qaacidada 2n plus 1 ku shaqeynaya. 2n plus 1. tusaalahaan oo kale carbonada la isiiyey marka hore waxay ahaayeen 2 ayay ahaayeen. maadaama 2 ay ahaayeen, hydrogenka aan soo helno waa imisa? waa 5. maxaa waaye? hydrogenka waa imisa? waa 5. marka hadda meesha waxaan ka fahmaynaa horta waxaan waa hydrocarbon. hydrocarbonkan meesha yaalla wuxuu noqon doonaa waxa la yiraahdo ethyl. sababtu waa maxay? alkyl groupka waxaa ka maqan ku dhaha 1 hydrogen less. soo kuma dhihin waxay ahayd 1 hydrogen less. tusaale meeshan haddii alkeenka caadiga ah waxaa waaye waa 6. maxaa waaye? 6 aa laga rabay. maadaama alkyl group ay noqotona 1 hydrogen ayaa ah, 1 hydrogen less waaye macnaha hal hydrogen aa maqan. tan marka waxaan ugu dhawaaqaynaa ethyl ayaan ugu dhawaaqaynaa. so marka waxaan rajaynaa haddii lagu siiyo hydrogen haddii lagu diro macnaha number of carbonka haddii lagu siiyo hydrogen lagu diro qaacidadan ayaa ku shaqeynaysa. marka waxaan jeclahay inay su-aashu aad u fududahay. marka waxaan rabnaa tusaalihii labaad waaye kii hadday tahay hydrogen aan raadinaa. kan waxaan raadinaynaa waxa la yiraahdaa number of carbon atom aan raadinaynaa. tusaale ahaan oo kale waxaad haysataa number of carbon atom ayaad haysataa, waxaad haysataa 7 hydrogen atom ayaa haysataa, intaana lagu dira. marka kan oo kale soo raadi ayaa lagu dhaha. weliba alkeenkan wax kale maahan, waa hydrogenadeeda waa imisa? waa 7. weli waa alkyl group. number of carbon atom lagu diray, hydrogenada ay haysato waa imisa? waa 7. okay. tusaalahaan oo kale marka waxaan rabnaa givenka inaan qorno. givenka waxaa waaye givenka waa maxay? number of carbon waxaa lagu diray number of carbon waa kana lagu diray. hydrogenadana waxaan haysataa hydrogenada waxaa haysataa 7 ayaa haysataa. so marka qaacidada aan ku shaqeyna waa maxay marka? tusaale number of carbon lagu diray, hydrogenadana waxaa haysataa 7 ayaa haysataa. hadayt waxaan soo example waxaan ka soo hadalnay hydrogenka la raadinayo number of carbon lagu siinayo. marka qaacidadii waxay ahayd aan ku heli jirnay hydrogen markii aan ka hadlayna waxay ahayd qaacidada aan ku heli jirnay maxay ahayd? 2n plus halkaan aan rabno inaan ka dharandarsano 2n plus 1. marka hydrogenada waxaan leenahay 2n plus 1 hydrogen 2 ayaan leenahay. number of carbonka waa imisa? okay. 2gan n ma haystaa aniga maanta? n ma haystaa? oo maya. wax animation oo ma uga jeedin oo waxaan ku bedeli karo maya. marka qaacidada bartaana ka dharandarsanaa. marka waxaan jeclahay inaad si fiican ila fahantiin isku daya. anaa taas waxaan u sameynaya wax kale ma ahayn, wax aniga hadda number of carbon aan haysto ma jiraan, laakiin asagaa la ii diray. maadaama asaga la ii diray, asaga waxaan geenaa banaanka geenaa qaacidana ogsoo leeyahay. waxaan leeyahay 2n oo 2n waxay la mid tahay hydrogenta inta imaanaysa. hydrogenta marka inta imaato waxay noqonaya hydrogenta oo laga jaray 1kaas. tusaale meesha balaas ku jooga meesha noqonaya haddii hydrogenta isoo wareegto. okay. marka waxaan leenahay 2n hydrogenada imisaan haysta? hydrogenka imisaan haysta? 7. ku bedelo hydrogenadii. maxaa laga jaraa? hal ka jar.
haye waxay noqon doontaa 2n waxay la mid tahay 2n waxay la mid tahay noqonaysaa ya 2n waxay la mid tahay labadan kala jar 7 halka jar waa 6 n maxaa ku dhufsan 2 labadan meel kasta u qaybi intana u qaybi inta hadii loo qaybi intana qaybi kan waxa kasoo baxa labadan waa isla baxayaan haddii kan loo qaybi inta waxaa 1 soo bixi doona inta loo qaybi waxaa soo bixi doona inta kor waxaa soo bixi doona 3 marka number of carbon-kii meequu noqon doona marka number of carbon-kii meequu noqon doona 3 number of carbon-kii maxaa soo saaray 3 marka waxaa fudud tusaale ahaan oo kale markii hydrogen-ta la raadinayo oo kale tusaale ahaan oo kale waxaa lagu siinaa hydrogen oo kale waxaa lagu siiyey hydrogen oo kale waxaa lagu siiyey 11 waxaa lagu dhahaa waxaa soo heshaa number of carbon qaacidada ku raadi kartaa sooma number of carbon waxaa lagu helaa 2n minus 1 hydrogen inta haysto 20 ku bedelo hal ka jar 10 ay noqon doontaa 10 laba u qaybi maxay noqon doontaa 5 carbon soo bixi doona okay maadaama hadda number of carbon maxaa soo baxay 3 soo baxda waxaan leenahay number of carbon-kii waa 3 sax hydrogen-nada hore aan waystay misay ahaayeen variable hydrogen-nada hore waystay maxay ahaayeen 7 waxaan leeyahay waa 7 waxaa laga wadaa 1 hydrogen ka maqan soo waxaan ugu dhawaaqi doonaa propyl tusaale ahaan kale waxaan ognahay marka alkane-ka caadiga laga hadlayo suffix-ka oo ane oo suffix-ka gadaalgalaha ane oo alkane-ka ah marka hydrogen-nadiisu complete yihiin u dhameystiran yihiin markii alkyl group laga dhigayo oo 1 hydrogen laga saaro hadda 7 meeshan 8 laga rabo markii alkane laga rabo oo ane ay noqonaysay marka maadaama 7 ay noqoto oo 1 hydrogen ay ka maqan tahay suffix-ka ane waxaa lagu bedeli doonaa markii alkyl group ay noqoto waxa la yiraahdo yl suffix la yiraahdo gadaalgalaha la yiraahdo yl ayaa lagu bedelaa waxaa lagu bedelaa gadaalgalaha yl oo hadda tan waxay noqon doontaa wax la yiraahdo propyl noqon doontaa propyl noqon doontaa propyl waxay noqotay waxa la yiraahdo propyl okay xarra alkyl groups marka laga hadlayo alkyl groups are named waa la magacaabaa by using iyadoo la isticmaalayo abbreviates horgale which indicates kaasoo muujinaya the number of carbon horgalahaas la isticmaalayo wuxuu muujinayaa tirada carbon atomka iyo sidoo kale suffix oo ah sidoo kale waxa la yiraahdaa gadaalgalaha oo yl lagu darayo which signifies yl tan waxay muujinaysaa that the group is alkyl group groupkan inuu waxaan ay yihiin alkyl group suffix haddii gadaalgala looga dhigo yl waxay caddeynaysaa arrintan in alkyl group waxaan ay yihiin example tusaale of alkyl group waxaa ka mid ah hadda tusaale ahaan oo kale hadda kan oo kale ch3 oo kale waa methyl oo kale kan oo kale carbonada waxaa ka maqan waa 2 carbon iyo 5 waa ethyl waaye tusaale ahaan oo kale kan oo kale xoogaa flaras waa kala qaldan yihiin laakiin adiga laakiin saan u raac sida ay u kala toosan yihiin u raac ch2 ch2 ch3 waxaan leenahay waa propyl oo midka hadda aan sheegaynay waxaa jira prefix of paste of alkanes waxaa jira horgalayaal oo alkaneska loo isticmaalo tusaale ahaan oo kale carbonka koobaad waxaa la dhahaa meth ka labaad waxaa loo yaqaanaa eth ka saddexaad prop
كأفراد بيوت كان شنات بنت لحاد هيكس تضبات هيبت سديدات أكت سجالان نونا تبنات دك لو يقان marka waxaan u maleynayaa intaan inaad si fiican aad u fahanteen okay marka the first waxaa leenahay the first four prefix afarta horgale ugu horeyda oo ah myth eth prop peter have historical origin waxay leeyihiin taariikh origin hore ilaa waa halka the other prefixes horgalayaasha kale wada derived from Greek waxaa laga keenay Greek ee la keenay la soco casharada maadada chemistry ee fasalka afraad iisan ku dhaafin markasta maalin kastana waxaan rajeynaynaa inaan soo gelino casharka maadada chemistry-ga haddii aan dahnana fadlan cilad way dhici kartaa daawade subscribe-ta saaro gomboleelkana saaro si casharada ay kuugu soo dhacaan